madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Silaanyo ayaa habeennimadii xalayto waxa uu kulan la qaatay isuduwayaasha laamaha dawladda odayada dhaqanka iyo qaar ka tirsan haweenka gobolka dhalinyarada iyo bulshada qaybaheega kale kulankaas oo ujeedkiisu ahaa mid lagu lafagurayay diiradana lagu saaray abaaraha xooggan ee ka taagan guud ahaanba gobolada galbeedka Somaliland iyo sidii looga gaashaaman lahaa abaarahaasi kani oo ay goobo joog ahaayeen golaha wasiirada xukuumadda kulmiye ee ku wehelinayay socdaalka madaxweynaha Somaliland ugu horeyn waxa goobtaas hadal kooban qaatay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan runtii u mahadnaqaynaa bulshada gobolka Awdal duruufaha ku yimid doorkii ay ka qaateen haday tahay madax dhaqameed haday yihiin ururada haweenka haday yihiin culimada waana mid loo baahnaa waxaan nahay dad kaliya iyo dal kaliya isku dareen ah inaynu isu naxariisano ayaa waajiba inaynu iscaawino ayaa waajiba inaynu isku tashano ayaa waajiba shacab iyo dawladba gabagabadii madaxweyne Silaanyo oo kulankaas soo afmeeray ayaa waxa uu Ilaahay ka bariyay in abaaraha uu ka dulqaado hadaladiisina waxa kamid ahaa geestiisa kale madaxweynaha Somaliland oo goobtaas ka soo jeediyay hadal kooban una badan dardaaran iyo sidii looga gaashaaman lahaa guud ahaanba abaaraha xooggan ee ka taagan dalka ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa sharaf weyn bay tahay anigoo waqtiga socdaba inaan maanta halka tabaadno ilaahay wuxuu ka bareynaa abaaraha baansan ee dhulkeena ku fiday ilaahay naga fidiyo naga sabada bixiyo ilaahay waxaan ka bareynaa umada khayr qaba xilkeena naga siiyo ilaahay waxaan ka bareynaa inuu si sharaf leh oo qiimo leh nooga saaro dhibaatooyinka inaguna aynu toobad keenno oo wanaag ilaahay ka bareynaa inuu ilaahay noo fududeeyo aad iyo aad baan u mahadnaq sida fiican qiimaha noo soo dhaweyseen waxaan ka wada qaadanaynaa anagu dawlad ahaan waan dhageysanay baayaha dalka waan aragnay waxa uu soconay inaan xogaan u noqono wixii taabka iyaga ah ee la gaarsiin kara waxaan ka haynaa ma jirto isku soo wada duub oo kulanka madaxweynuhu la qaatay bulshada qaybaheega kala duwan ayaa waxa uu ka mid noqonayaa dadaalada xooggan ee loogu jiro abaaraha ka taagan guud ahaanba gobolada galbeedka Somaliland wa jaamac Xuseen jaamac Dudde Space Channel Borama